السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمان أصحابتك كحرن كانالك كسو دوادا برنامجك عافيمادك إيو رمضانك وموقالكي لواد إيه برنامجك موقالكي هوري وحانكاك سو هادلي cuntooyinka ugu wanaagsan in lagu afuro iyo kuwa aan u wanaagsaneyn in lagu afuro. haddii aadan daawanin soo daawo linkiga ama lifaaqa waxaan kugu reebi doonaa xagga hoose description-ka. muuqaalkan waxaynu isla arki doonaa cuntooyinka u wanaagsan caafimaadkeena iyo kuwa aan u wanaagsaneyn caafimaadkeena in lagu suxuurto. haddaan ku hormaro cuntooyinka u wanaagsan in lagu suxuurto waxaa ka mid ah waa inaad ku suxuurataa qamadi, maxaa yeelay waa cunto culus waqti badan ayay jirkaada ku jiraysaa maadaama ay ku jiraan nafaqooyinka kala duwan ee uu jirkaada u baahan yahay. waa inaad cabtaa biyo badan markaad seexanaysid sababta oo ah waqti badan oo soomid ah ayaa ku sugayso. sidoo kale waa inaad cuntaa khudradda cagaaran. khudradda cagaaran waxaad ka helaysaa nafaqooyin kala duwan. waa inaad cuntaa fruitiska sida muuska maadaama ay ku badan tahay maadada potassiumka waxaana ka helaysaa tamar badan xilliga soonka ah. waa inaad cabtaa biyaha fruitiska ama biyahan la shiiday sida cambaha iyo babayga oo kale. waa inaad cuntaa cuntooyinka ku badan yihiin proteinska sida hilib cadka, digaaga iyo kalluunka. sidoo kale waa inaad cuntaa fruitiska sida qaraha iyo babayga maadaama ay qaraha ama wax loo yaqaan xabxabka uu ka kooban yahay 92% biyo iyo sidoo kale 96% sokor, taas oo ka caawinayso inaad maalintii haraad badan aadan dareemin haddii aad ku suxuuratid. cuntooyinka aan wanaagsaneyn in lagu suxuurto waxaa ka mid ah iska ilaali cuntooyinka loo yaqaan white foodska sida baastada iyo bariiska, waayo carbohydrates badan ayaa ku jiro waana low nutrition oo ah in nafaqooyinka ku jiro cuntadaas ay aad u yar tahay waxayna kugu sababi kartaa buurni ama cudurka macaanka. iska ilaali shaaha iyo kafeyga inaad ku suxuuratid sababta oo ah waxay kugu sababi karaan haraad ama oon fara badan xilliga soonka ah. iska ilaali cuntooyinka la shiilay waxay kugu keeni karaan cudurrada stroke iyo diabeteska oo ah macaanka. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeena koobnaay waan ugu hadlayo cuntooyinka ugu wanaagsan in lagu suxuurto iyo cuntooyinka ugu wanaagsaneyn in lagu suxuurto. fadlan kusoo biir kanaalka sidaad ula socotid taxanaha barnaamijka caafimaadka iyo ramadaanka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.